السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي igu xiran kuwa igu cusub intaba soo dhawaada dhamaantiina waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waa muuqaal muhiim jiddan ah hooyo kastana aad u intifaaci doono heesato caruur ka weyn 7 bilood muuqaalkan waa muuqaal ka turjumi doono cuntooyin dheelitiran oo dhameystiran oo ilmahaaga aad weyn u intifaaci doono haddii ahaaleed miisaan kordhintiisa iyo caafimaadka kaleeto oo jirkiisa intaba muuqaalaadkan waa muuqaalada aad muhiim u ah in caruurta Soomaaliyeed aad weyn hooyooyinka ay uga faa'iideeyaan mar walba oo cunugaaga caafimaadkiisa oo kor noqdo waa mar walba cunugaaga oo si dabiici ah oo u koraa bilis haday ku tahay markoowaad ay timaado subscribe isaar like tane isaar insha Allah awlada ila joogtana ilaa garay ina share garay inta sadaa uga gudbo halkan waxa ku soo diyaarsaneeda 2 qaado oo bariis nooca doontid oo markaas ku yaalo guriga waad soo dhaqay markii aad soo nadiifisid oo 4 mar aad dhaqdid kadib waxaad sameynaydaa bariiska meel ayaad dhiganaysaa bariiska waxyaabo badan oo faa'iidooyin jirka caruurta u leh ayaa ku jira oo fitamiinaad ah waxa kale oo aad soo qaadanaysaa lowska noocyadiisa kala duwan midka aad heli kartid hada kuwaan oo kale supermarketyada waa lagu gadaa hadii aad weysidna loo Soomaaliga caadiga ah ku bedelo iyo sabiib booskooda gasho hadii aad heshidna waa okay oo waa sida loo baahnaa lowskan waad soo dhaqaydaa muddo 10 daqiiqo camal ah aad biyo ku shubanay biyo bakeeri haafkiisa ah ayaad meel la dhiganaysaa ilaa 10 daqiiqo aad u kaadinaysaa lowska nooc walba uu yahay faa'iidooyin badan oo waxa ku jiro xagga miisaan kordhinta ah iyo maskaxda caruurta qaabka ay uga dhigi lahaayeen maskax kororto aadna active u ah oo u firfircoon hooyooyinka mar walba waa caruurta inay siiyaan lowska ayagoo ugu darayo cuntooyinka kala duwan iyo cabitaanaadka waayo mar walba oo cunugaaga lowska aad siidid waa mar walba oo cunugaaga xasuustiisa kor ay noqoto caruurta kale oo waxbarashada ku jira aad weyn ayuu intifaacayaa maskaxda caruurta firfircooni badan ayuu siinayaa fahmadan uu soo celinayaa waxaad dabka soo saaranaydaa digsi waxaad ku shubanaydaa hal qaado haafkeeda oo batar ah ama oil leaf ama saliid macsaro mid markaas aad heli kartid ayaad ku shubanaydaa badanaa oil leafta ama subaga aad wixii ugu fiican yihiin caruurta in ay siiyaan borotiimo dhameystiran saliidi dabka markaad ku shubatid waxa ku soo darsanaydaa lowski aad biyaha la soo dhigtay biyaha ayaad ka soo bixinay ilaa uu ku jilcay waxa ku shubanaysaa digsigii dabka ku saarnaa waad walaaqaydaa ilaa wax yar uu isku shiilmo lowska waxa ku jira maadooyin qani ah oo fitamiino badan ku jiro caruurta wax baranayso iyo caruurta yaryar kama maarmaan hooyo kasta oo haysato caruur rooroon oo wax barato oo ku jirta xilliga waxbarashada quraanka ay baranayeen ama hadii kaleeto ay ku jiraan waqtiga iskuulaadka ha uga faa'iideeyaan caruurtooda lowska iyo sabiibka aad weyn ay maskaxdooda active uga dhigaysaa firfircooni badan u siinay waxa kale oo soo qaadanayda hal xabo oo tufaax ah tufaaxa waad soo jarjaray waadna soo fiiqay waad soo dhaqaydaa digsigii aad ku diyaarsatay lowska iyo saliida ayaad ku darsanaydaa si wacan ayaad isku dhex gelinaydaa markii uu isdhex galo waxaad kale oo soo qaadanaydaa bariiska aad meesha dhigtay oo haday aad dhaqday waa ku darsanay si fiican ayaad isku dhex gelinaydaa biyo ayaad ku daraysaa hal bakeeri iyo bar ilaa 2 bakeeri oo biyo ah digsiga meel ugu hooseeya dabka u geey digsi fiican oo isiinayo oo mitana ku shubo si uu sakaaga kala gursan ama uu sakaaga bislaan 5 daqiiqo ama uu sakaaga guban wax walba oo waqti la siiyo waa wax walba oo dhadhankooda aad u wanaagsanaada caruurtana aad weyn waxay u jecel yihiin cuntada lagu farayareysto oo waqtiga la siiyo dhadhankeeda soo laabto markasta isku day ilmahaaga qaabka ugu sahlan aad cuntada ugu sameeynaysid inuu noqdo mid ay ka heli karaan caruur waxa jiro dhanaanka jecel caruur waxa jiro macaanka jecel caruur waxa jiro dhanaan iyo macaanba aan ka helin marka cunugaaga cuntooyinka isugu dhexwad oo isku day cuntooyin walba inaad bartid ilmaha
si uu ula qabsado cuntooyin dhammaystiran oo caafimaad buuxo uu ka heli karo. Markasto waxaad isku daydaa ilmahaaga in aad siidid cuntooyinka borotiinka leh oo jirkooda difaaca badan ay ka heli karaan. Cuntadan waa qado ama casho dhammaystiran oo kaala arag ah, fitamiinaad badanna ay ku jiraan. Caruurtaadana ay kaaga baahan yihiin markaad siidid kadib caano inaad uga dabamarisid ama cabitaano maasha Allah loo sameeyay inaad uga dabamarisid. Waa cunto dhammaystiran caruurta yaryar oo 7 bilood ka sareeya ayaan ugu talagalay in ay aad uga faa'iidaan si hooyooyinkii ay u helaan cuntooyin nafaqo dhammaystiran ku jiro. Markasto gabdhaha waxaad moodaa in ay soo weydiiyaan cuntooyinka ilmaha munaasabka ku ah. Meeshaan had iyo jeer waxaa isku dayaa sida ugu quruxda badan inaan igu soo gudbiyo fiidiyoyo dhammaystiran oo aan isdhihi karo hooyo kasta oo Soomaaliyeed way ku fahmi kartaa ama way ka heli kartaa cashiradan cashiro saacideeyo. Haddana waxaa moodaa gabdhihii weli in ay u baahan yihiin waxyaabo intaas ka sii badan. Channelka gadaal ugu laabo waxaa ku jiro cashirada caruurta oo nooc walba isugu jiro. Maalinkii ay 6 bilood galaan caruurta ilaa 10 sano, xitaa 10 sano wixii ka koreeyo way ku jiraan waxyaabaha aan ugu talagalay. Waxyaabaha aad codsataan waan igu soo darayaa groupka aad ka codsataan ama aad ka codsataan meelaha kale aad igala soo xiriirtaan. Waxaad soo qaadanaydaa looskii iyo bariiskii soo gursaday iyo tufaaxi oo soo bislaaday ayagoo aad kaaga qalalin ayaad ka daminaysaa digsiga dabka. Kabacdi waxaa ku shubanaydaa blenderka wax lagu shiido. Waxaad sameynaydaa waad soo shiiday ilaa uu ka soo noqdo daqiiq camal oo qurux badan ayuu ku noqonayaa. Kabacdi waxaad ku shubanaydaa baaquligii ama saxankii aad ugu talagashay babyga inaad wax ku siisatid. Kadib babygaaga qado dhammaystiran ama waxaad uga dhigaysaa casho inaba caadi ma ahan. Waa waxyaabo laga shaqeeyay borotiinka ku jiro iyo kaalmaatiga caruurta miisaan xumada heeso firfircooni la'aanta ah, caloosha adag, midda kaleeto ilkaha ka soo daaheen, socodka ka soo daaheen loogu talagalay in ay awood dhammaystiran ay siido. Ilaah baa wax awood siiya laakiin Ilaahay dadaal ayuu ku yiraahdo oo la imaa sababtii si aan kula garab galno. Marka waxyaabahan waa waxyaabo aan ugu talagalay hooyooyinka garab weyn inay ka helaan maadaama gabdhihii Soomaaliyeed badankooda waxyaabihii caruurta ay siinayeen ay ku daalayaan. Haddana wixii ay karinayeen noqonayaan wax aan dhammaystirneen ama aan isku dheelitirneen oo markasto ilmihii sidiisa uu yahay cunugba cunugu ka nafaqo badan yahay ama cuntooyin isku dheelitiran laga sii og yahay wuu kala fadhisan yahay ama wuu ka qurux badan yahay. Ilmaha kala ma qurux badno laakiin waxay ku kala qurux badan yihiin qaabka aad nadaafadiisa iyo koriimadiisa iyo maskaxdiisa caqliga aad uga tijaabisay oo aad ugu talagashay mar walbo horay inaad u wadid babygaaga. Saxanka markaad ku soo diyaarsatid waxaad ku shubanaydaa oo korka uga darsanaydaa caanaha formulada caruurta aad siisatid nooca doonaan ha ahaadaan ama caanaha kale markaas kuu dhow waad isku qasee. Kabacdi babygaaga waad siinaydaa. Waa qado dhammaystiran ama casho dhammaystiran aan ugu talagalay caruurta 7 sano ka weyn in ay ka faa'iidaan oo hooyooyinka ay aad u weyn ugu sameeyaan caruurta maadaama ilmaha waqtigaas markay joogaan ay u baahan yihiin cuntooyin xoog leh oo isku dheelitiran misana jirkooda kor u qaaday koriimadooda. Muhiimada waa lafaha ilmaha inuu ka koro, aragiisa cunugaaga inuu yahay arag maasha Allah ah, maqaarkiisa inuu ifayo, caqligiisa horumar inuu sameynayo oo ilmahaaga mar walbo aad dhisi kartid caqligooda iyo fikradaha markaas ku jiro. Hooyooyinka had iyo jeer waxyaabaha aan u soo gudbiyo waa waxyaabo aad u weyn oo intifaaci doono. Waxaa insha Allah muuqaalkan igu soo xijinayaa yogurtka aan ugu talagalay caruurta jiro 5 sano kuwa ka weyn. Ma fahamteen? Yogurtyo borotiimo leh oo maasha Allah tabaaraka raxmaan aad ku caawi doono oo kaala arag ah aad ka heli doontaan ayaan nii soo gelinayaa. Anigana aan ka helay waayo mar walbo waxyaabaha aan tijaabiyo waa waxyaabo markasto aan isdhihi karo gabdhaha Soomaaliyeed aad ayuu macnaha u intifaaci doonaan. Waayo
aniga caruur ayaa ii joogto, ilaahi subxaana watacaala ha ii deysto. Waxyaabaha marka aan isdhihi karo waxaan cunugaaga munaasab ayuu ku yahay, waa caruurta Soomaaliyeedna in ay ka faa'iideysan karaan, hooyooyinkana ay ogaa karaan waxyaabahaas waxay yihiin. Marka insha Allah yogurtka sidaa soo codsateen insha Allah waan ii soo gelinayaa, cashirkan cashir ku xigaan iga soo dhigayaa. Haddii waxyaabo kaleeto oo markaas aad daneyneysaan ay jiraan, isku soo raaca oo qaybta hoose oo commentiga kusoo xardha, ama groupka soo dhiga, ama luuqa ii soo dhiga insha Allah, si mar walbo aan u ogaado waxyaabaha had iyo jeer aad daneyneysaan oo baahiyada gaarka ah aad u qabtaan. Ilmaha waa laga maarmaanka nolosha, ilmaha waa mar walbo hormuudka waalidka, ma fahamteen? Cunugaaga markuu yahay cunug caafimaad qabo, qurux badan, caqli badan, kaala arag ah, waa markasto aad ilaahi subxaana watacaala aad uga mahad celinaysid. Markastana ilaahay ku mahad celi oo alxamdulillah dheh, wuxuu ilaahay ku siiyay dadaalna la imaaw si aad nolosha ula jaan qaadid, aad u heshid ubad kaala arag ah, ilaahi subxaana watacaala ajir badan oo kaaga siiyo. Ilmaha ilaahay uga cabsada gabdho, anagoo dhan ilaahay uga cabsano. Waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo caruurtooda aan daryeelin, aad marmarka qaar isdhihaysid ilmahan dhibka aad ka soo martay hooyooyinka ma ka soo marin miyaa, ma fahamteen? Hooyooyinka isku hal ma ahan, kuwa careless iska jiro, caruurtooda haddii baahan yihiin iyo haddii kaleba aan kala jecleen, ama ku aaminaya dad kaleeto ayagoo nool oo joogo oo xayi ah, dhahayo cuntada noo sii ama haddii kaleeto noo ogaaw. Marka taas ka foojignaada, barnaamijyo kale aan iga soo sameyn doonaa. Wassalaamu calaykum.